hal xabo oo tufaax oo aad maalin walba cunto waxay kaa caawinaysaa in aad dhakhtar u tegin. taasna waxay ka dhigamataa qofka hadduu dhakhtar aadin inuu caafimaad qabo. ma ogtahay tufaaxa halkiisa garaam waxaa ku jiro 115 mili oo biyo ah. subxaan allah. tufaaxu waa 3 nooc, waa jaale, cagaar iyo gaduud. intaba dhadhankooda aad iyo aad ayuu u macaan badan yahay. maanta waxaan ka hadli doonaa nimco ka mid ah nimcooyinka allah subxaana watacaala nagu manaystay, waana tufaaxa. soo dhawaada, daawo videoga bilaaw ilaa iyo dhammaad sida aad wax walba uga ogaatid. waxaa laga yaabaa wax kaa anfaco inuu ku jiro, sidoo kaleetana la wadaag ehelkaaga iyo asxaabtaada ayagana siday uga faa'iidaystaan. bismillaahi alfataaxi alcaliim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal kusoo dhawaada kuwiin hedsom waan idiin salaamay meel walba waa dunida ka joogtiin iyo xilli walba oo idintaa. waxaan idiin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina. asxaabta cusub, asxaabta hore u joogtayna soo dhawaada, kusoo dhawaada qalbi furan. aad iyo aad umahadsantiin. waa mahadsantiin inaa idiin dhowna marnaba kama daalayi kamana caajisayay. man laa yashkuri innaas laa yashkuri illah. alxamdulilah, allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo ii ogolaaday inaan video kale cusub soo duubo anigoo caafimaad qabo. idinkana waxaa rajeynaya inaa caafimaad ku daawan doontaan. inta xanuunsanna ilaahay caafimaad taam ha siiyo, allaahuma aamiin. asxaabteyda qaaliga, maanta waxaan ka hadli doonaa tufaaxa faa-iidooyinkiisa. alxamdulilah, nimco ka mid ah nimcada allah subxaana watacaala uuna siiyey in aan ka faa-iideysano oo aan barano. awoodaaseeta allah subxaana watacaala ayaa iskale, asigaana mahad oo dhan ay u sugnaatay. asxaabteeda qaaliga, abalka sidaan ognahay amaba adduunka dhan laga yaqaano inuu abalka qofka maalintii hal xabo oo abal hadduu cuno ay ka kaafin doonto inuu dhakhtarka booqdamo amaba xanuunsado. tufaaxa subxaan allah wuxuu leeyahay biyo oo aad iyo aad u badan oo jirkaaga xitaa inaad biyo cabtid mararka qaar kaa kaafinayo haddii aad cuntid abalka. sidoo kaleeto faa-iidadiisa saxa waxaa ku heli kartaa in aad abalka iyo qubkiisaba isla cuntid, amaba tufaaxa iyo qubkiisa aad isla cuntid. dhadhankiisana qof diidayo ma lahan. midka cagaarka xoogaa yar dhanaan waaye, laakiin dadka way jecel yihiin. kan cagaarka aad iyo aad waxaa isticmaalo dadka jecel in ay hilibka iska ridaan. tufaaxa sucarad xaraarkiisa ama digriga kuleelka jirka bini-aadanka ayuu dhalaaliyaa, uu ka shaqaysiiyaa. wax difun ma lahan oo jirkaaga maanta difin ku reebayo in uu kaa nadiifiyo mooye. sidoo kaleeto asxaabteyda qaaliga ah, tufaaxa inta vitamino ku jirto ayaan maanta ogaaneynaa. subxaan allah, inta laguma soo koobi karo. vitaminka ugu horeeya waxaa waaye vitamin a amaba vitamin e. sidoo kaleeto waxaa ku jirto alyaaf, maadada alyaafka la dhahayo. soomaali haddaa ku taqaanid hoos iigu soo qor fadlan, waa kaa faa-iidaya, bulshadaadana waa ugu faa-iideynaya. sidoo kale asxaabteyda qaaliga, fitaminada ku jiro waxaa waaye ba1, ba5, ba6, ja iyo ka iyo vitamin c. intaaseeti oo vitamino ayaa ku jiro. waa vitamin e, vitamin b1, b5, b6, g and k. intaasoo vitamina ku jiro iyo vitamin c oo subxaan allah vitamin c giisa inaba lasoo koobi karin faa-iidooyinka jirka uu u hayo markii qofka uu tufaaxa cuno. tufaaxa wuxuu qofka bini-aadanka ka caawinayaa inuu jirkiisa sunta ka nadiifiyo, weliba sunta khaasatan dhiiga jirka dadka ka gasho, khaasatan caruurta aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay. baaritaan la sameeyey markii la aamini waayey in oo tufaaxa jirka dhiiga sunta ka nadiifiyo ayaa waxaa dhakhtar aad iyo aad u weyn uu tartan la galay dad. markaaseeti uu dhahay waa la barooweynaya. markii la barooweeyene dad oo da-yadooda kala duwan ayaa lagu barooweeyey, yacni cunug yar, weyn iyoba hooyo, aabo, dad yacni adiga cimri walbo, qof walbo, da walbo, da-yaal badan ayaa lagu barooweeyey
oona sunta uu ka nadiifiyey subxaanallah. haddii aan u imaano dhanka iyo wadnaha amaba qalbiga, sanadkaneeti waxaa soo batay qofka inuu wadnaha istaago ama mootul faj'a ku dhacdo. geeridu waa xaq waqtigiis oo qof walba dhimanayo, laakiin waxyaabaha wadnaha qofka inuu istaago oo sababo waxaa waaye in xididaha dhiigga ay xirmaan. waxaana ka caawin doonaa abalka in uu wadnahaaga xididihiisa dhan uu ka shaqaysiiyo, sidoo kaleetana uu nadiifiyo oo aad kaga maarantid. haddii aad rabtid wadnahaaga in uu istaagin ama dhiigga wadnahaaga uu fariisanin, waxaa kugu filan maalintii 2 tufaax inaad isticmaashid. sidoo kaleeto asxaabteyda qaaliga ah, wuxuu fiican yahay cudurka kansarka. ilaahay hanaga wada najeeyo, inta la ildarana ilaahay caafimaad taam ha siiyo. sidoo kaleetana wuuna ka hortagaa, wuuna caawiyaa marka uu yaryahay. marka sidoo kaleeto dadka sokorta qabaan, sokorta ayuu u saxayaa. sokor waxaa ku jirta tufaaxa oo dabiici ah oo Allah subxaanahu wa tacaala uu ku maneystay. waxyaabaha sokorta dabiiciga lehne dadka sokorta qabaan wax dhib ah uma keenayo. sidoo kaleeto kolestaroolka ayuu caawiyaa, khaasatan midka sunta ah. ilaahay hanaga wada najeeyo, inta la dhibaateysan ilaahay caafimaad taam ha ka siiyo. sidoo kaleeto asxaabteyda qaaliga ah, cudurada guud oo dhan, kilyaha, wadnaha, beerka, caloosha, meel walba ayuu nadiifiyaa. sidoo kale calool istaaga ayuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay. mandhiciirada ayuu aad u nadiifiyaa. abalka rag iyo dumarba wuu u fiican yahay, amaba tufaaxa. sidoo kaleeto asxaabteyda qaaliga ah, wuxuu u fiican yahay hooyada uurka leh haddii ay maalin walbo daa'imato tufaax in ay cunto. cunugeeda cuduro badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka najeynayaa, khaasatan cunugaaseeti yacni neefta ayuu ka caawinayaa. ilmahana markay yaryar yihiin, hadday neef qabaan amaba mar walbo hergebka oo xabadka fariisto oo ku dhacayo, tufaaxa sii maalin walbo sida uu uga baaba'o. sidoo kaleeto caruurta aad iyo aad ayuu wuxuu ugu dhisaa lafaha. waxaa ku jirto calcium oo subxaanallah aad iyo aad u adag, oo lafahiisana qofka biniaadanka aad u adkeynayo, rag iyo dumar iyoba caruurbo. qof walbo oo isticmaalo tufaaxa subxaanallah, arka nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala uuna siiyey, in aan ka faa'iideysanana loo baahan yahay. mararka qaar waxyaabaha Allah subxaanahu wa tacaala nagu maneystay ayaa isbitaal oo dhan ka qiimo badan, adigoo qarash yarna bixinayo, aadna ogtahay waxyaabahaneeti in ay kiimika badan lahayn. sidoo kaleeto keliyaha aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay, waxaana sabab u ah in uu biyo badan ku jiro. waxaa ku jiro 1 gram oo keliya oo tufaax ayaa waxaa ku jiro 115 mili oo biyo ah. subxaanallah, marka aan ka faa'iideysano oo mar walbana nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala aan raadsano, aanna barano sida aan uga faa'iideysano. sidoo kaleeto haddii aad dadka oo maqaarkooda mar walba qalalo aad tahay, tufaaxa aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay. markii aan dhanka qurxinta usoo weecano, wuxuu ka caawinayaa in uu jirkaaga wax qaleel yeelanin. tufaaxana goormuu fiican yahay inuu qofka biniaadanka cuno? xili walba wuu fiican yahay, waad cuni kartaa, laakiin waxaa wanaagsan calooshaada oo baahan maalintii 1 xabo tufaax, weliba oo qubkiisa leh haddii aad cuntid wax badan ayay kaa caawineysaa. jirkaagana qaleelka dhan ayay ka ilaalineysaa. sidoo kaleeto waxay kaa caawineysaa xasaasiyada amaba allergiga. haddii aad tufaaxa allergy ku ahayn waaye, haddii aad tufaaxa allergy ku tahay, ha isticmaalin. waxyaabo ka badan oo nimcooyin kale Allah subxaanahu wa tacaala muneystay oo faa'iidooyin ayagana ka heli kartid ayaa jiro. insha Allah waana idin soo gudbinayaa haddii ay nafta igu jirto oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaana raali iiga dhigo. wax walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaawna way ahaatay, u dhihin anaga ma sameyn karno, oo keliya waxaan nahay dad iska hadlo, oo wax walba Allah subxaanahu wa tacaala ayaa noo hirgeliyo. alxamdulilah mar walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaan ku xamdinaa, dhib iyoba dheef. idinkana waxaan idinka codsanaya walaaleyga qaaliga ah, in aad dadkiina u faa'iideysiin wax walba oo wanaag ah amaba kheyr ah, amaba qof maanta u faa'iideyn karo. adiga ogaa
ajirkiisa waad leedahay. Marka sidaas darteed sii share garee videogan intaan kusoo gabagabeynayaa. Inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynane waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaan Allah.